roobab mahiigaan oo maanta saacadu markeed 4:00 galabnimo ka bilaabmay qaybaha kala duwan ee gobolada galbeedka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay sababeen dhimashada 3 ruux iyo dhaawaca 2 qof oo kale. Dhimashadani ayaa waxay ka dhacday deegaanka degmada Baki oo ka tirsan gobolkan Awdal sida uu noo xaqiijiyay xogayaha degmadaasi Baki Yaasiin Nuur Deriyo oo kamid ah howlwadeennada degmadaasi wuxuuna sidoo kale noo xaqiijiyay in guud ahaanba degmadaasi Baki oo ka geystay roobabkani maanta ka da'ay khasaare maaliyadeedkaasi oo baabiyay qaybo kamid ah dukaanada ganacsiyada ku yaala magaaladaasi. maayir ku-xigeenka degmadaasi Baki ayaa sidoo kale isaguna waxa uu ka sheekeeyay qaabkii uu u da'ay roobkani iyo khasaaraha uu geystay iyo dhimashada inta ku geeriyootay. roobabkani oo sidoo kale ka da'ay gobolkaasi Salal gaar ahaan degmada Seylac iyo Lughaya iyo deegaamada hoos yimaada ee Gaarisa Garaaca Abasa Boon ayaa waxa laga soo sheegaya in guud ahaanba deegaanadaasina uu roobabkani ay ka geysteen maanta khasaare maaliyadeed kuwaasi oo baabiyay qaybaha kala duwan ee ganacsiyada ku yaala magaaladaasi. dhanka kalena degmada Boon ayaa waxa laga soo sheegaya in roobabkani ay maanta burburiyeen ku dhawaad 3 aqal oo kamid ah aqalada ku yaala degmadaasi Boon. roobabkani oo watay dhagaxyo daadad iyo sidoo kale hilaacyo kala duwan oo ka argagixiyay bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaaladani Boorama ayaa roobkani waxa uu noqonayaa mid ka duwan kuwii hore uga di'i jiray guud ahaanba deegaanada kala duwan ee gobolkan Awdal.